halkan waa ka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo ku kala qaybsamay doorashadii shalay ka dhacday Muqdisho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dadiilo cusub ay soo gashay dowladda Qatar oo dadaal xawli ah ku bixinaysa in madaxweyne Farmaajo mar kale xilka loo doorto kooxda TPLF oo shuruudo adag ku xirtay aqbalaadda xabad joojinta qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato subscribe inoo saar YouTube-keena ka wararka muuqaalkana like saar asxaabtaadana u share garay si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid ah aanu yeelano doorashadii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa waxay la soo shaac baxday arrimo lama filaan ah iyadoo golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya arrintaas ay ku kala qaybsameen doorashadii shalay ka dhacday teendhada Avisonia ee lagu doortay gudoonka guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa muujisay laba arrin oo mid kamid ah lama filaan ay tahay halka mid kalena la qiyaasayay arrinta koobaad ee doorashada ka soo shaac baxday ayaa waxay ahayd sida ay ugu kala fog yihiin xubnaha mucaaradka ee sidii wadajirka ahaa uga soo horjeeday madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrinta cajiibka ah ee ka soo baxday doorashadii gudoomiyaha guddiga ayaana ah in xubin kasta oo musharaxiinta ah hoos ay ka taageerayeen gudoomiyihii shalay la doortay ee Maxamed Xasan Cirro oo ah gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ee la kala diray ka hor inta aan la kala saxiixin heshiiskii 27 May Cirro ayaana aad loogu xantaa inuu aad ugu dhow yahay madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana waxaa la sheegay in ay ku kala qaybsameen doorashada oo aan hal musharax isku raacsanayn marka laga reebo liibaan xasan maxamed liibaan shuluq oo si gaar ah lagu tilmaamayay Cabdikariin Xuseen Guulo iyo kooxo kale oo ay arag ah in ay isaga ay wateen golaha midowga musharaxiinta ayaa xoogga isugu geeyay sidii xilka gudoomiyaha ugu guuleysan lahaa Maxamed Xasan Cirro maadaama ay u arkaan inuu isagu ka roon yahay liibaan shuluq oo ah shakhsi si weyn uga ololeeya Cabdikariin Xuseen Guulo oo horey u soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug liibaan shuluq ayaana sidoo kale waxaa la sheegay inuu garab weyn ka helay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxa ayna midaas ay muujisay sida ay u yartahay awoodda Rooble ee dhanka guddiga doorashooyinka dalka arrinta labaad ee shaac laga qaaday ayaa waxa ay ahayd awoodda dhaqaalaha doorashadii shalay iyo dhaqaalaha kale ee noqon doona marka ugu muhiimsan ee doorashada xildhibaanada iyo midda kale ee madaxweynaha xogo laga helay Villa Soomaaliya ayaa waxa iyagu markaa ay sheegeen in xubnaha dooranaya gudoonka ay u qaybisay lacago fara badan Villa Soomaaliya si ay ugu soo saarto gudoomiye Cirro sidoo kalena qaar ka tirsan golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay lacag ku bixiyeen in aan la dooran liibaan shuluq oo Cabdikariin Xuseen Guuleed aad uga ololeeya doorashadii gudoonka guddiga lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaana gudoomiyaha guddiga waxaa loogu doortay Maxamed Xasan Cirro kaas oo wareegii koobaad helay 14 cod halka liibaan Maxamed Xasan liibaan shuluqna uu helay 10 cod maadaama isagu uu la tartamay doorashada oo ahayd mid xamaasad sareysay ayaana waxaa ku tartamay 5 musharax iyadoo wareegga labaad ay u gudbeen Maxamed Cirro iyo liibaan shuluq guddiga oo ka kooban 25 mudane waxaa dalka ka maqan xubin kamid ah iyadoo 24 kale hoolka iyo xaadir ku ahaayeen isla markaana ay wada codeeyeen gudoomiyaha cusub ee guddiga Maxamed Xasan Cirro ayaa lagu tiriyaa inuu si weyn ugu dhow yahay garabka Fahad Yaasiin iyo Farmaajo inkastoo uu isagu dhowr jeer sheegay inuu si cadaalad ah ugu shaqayn doono doorashada Soomaaliya la filayo in dhawaan ay ka dhacdo taas oo ah mid xildhibaanada iyo mid kale ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 4 sano soo socota hogaamin doona Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadiilo cusub yeeshay kadib doorashadii shalay Cirro uu ku soo baxay tixraaca siyaasadda guud iyo isxulufaysiga socda marka la eego hawsha socota waxa ay bilow u tahay tartan adag oo loo galayo doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya taas oo kala ah tan baarlamaanka iyo midda kale ee madaxweynaha oo la filayo in 10 bisha Oktoobar la qabto mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ku kala aragti doona qaabkii loo wajahay doorashada gudoonka taas oo shalay uu ku soo baxay Maxamed Xasan Cirro oo horey gudoomiye ugu ahaa guddiga doorashooyinka dhabarjabin ayaa waxay ku noqotay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo horey u soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo saaxiibadiisa waaye aragga ah inay soo saari waayaan liibaan shuluq oo ahaa mid ay wateen golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ku haray doorashadii shalay ka dhacday teendhada Avisonia isla markaana Maxamed Xasan Cirro uu ku soo baxay guusha Maxamed Xasan Cirro ayaa waxay bilow u tahay guusha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee sahal ka dhigi karta in doorashada Soomaaliya ee isha lagu wada hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo baxo isla markaana isagu ay doortaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah
kuwa laga doonayo inay doortaan madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota hogaamin doona Soomaaliya. Waxaan halkan ku eegi doonaa 3 qodob oo filla Soomaaliya ay u aragtay in ay guul ka gaartay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kadib doorashadii shalay ka dhacday teendhada Afisoni oo Liibaan Shuluq oo golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay wateen lagu reebay. Midka koobaad ayaana waxa uu yahay in Ciro oo nabad iyo nolol ay wadatay uu soo baxay, taas oo dowladda muddaxileedkeedu dhamaaday isla markaana uu hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u aragtay mid ka mid ah guulihii ay ka gaartay doorashadii shalay ka dhacday Muqdisho. Midda labaad ayaa waxa ay tahay inuu abuuray doorashadii kalsoonida beesha caalamka looga sarrifay in la qanciyay oo xubnihii shakiga ku jiray la shaaciyay in 34 ka mid ah la bedelay. tan saddexaad ayaana waxa ay tahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yadadilo cusub soo gashay isla markaana uu hanqaltaagi karo dib u soo laabashada dowladda isaga hadda uu hogaamiyo ee muddaxileedkeedu kal hore u ilaaday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana taas waxa uu arkaa inay tahay wadada kaliya ee uu ku soo bixi karo maadaama Maxamed Xasan Ciro oo nabad iyo nolol ay wadatay uu soo baxay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya mar waliba waxay ku andacoodaan inuu sifo sharci darro ah ku fadhiyo filla Soomaaliya maadaama muddaxileedkiisu uu ka ekaa February. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbax ka dhan ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse dhowr mar ay isku dayeen arrintaas waxaa ka dhalatay iska horimaadyo sababay in ay ku baxaan dad badan oo dhalinyaro ah iyo si la mid ah dad kale oo waayeelo ah kuwa oo xabadaha habowga ah ay ugu tageen hoyga ay ka degan yihiin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka soo horjeeday muddo kordhintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo galeen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. mucaaradka ayaa hadda waxa ay rajo ka qabaan in qabasho ay ku sameyn karaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si looga hor istaago xukunka isagu uu doonayo ee ah inuu ku soo baxo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, sidoo kalena uu doonayo in 4 sano ee soo socota uu Soomaaliya hogaamiyo madaxweyne uu ka noqdo gudaha waddanka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyadoo hadda muddaxileedkiisu kal hore u ilaaday isla markaana uu joogo filla Soomaaliya. Farmaajo ayaa waxa lagu sifeeyaa inuu yahay nin adag isla markaana ayaa waxa ay ku xantaan inuu yahay mid keligii talis ah. Fikirkaas ayaana si lamid ah waxa qaba golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. dadka kale ee ka faallooda siyaasadda ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr jeer waxay u jeediyeen dhaliilo kala duwan oo ku aadan inuu isagu doonayo inuu duusado doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya. dowladda Qatar ayaa waxay qorsheynaysaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ee soo socota uu hogaamiyo Soomaaliya. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la ogaaday in uu la soo baxay dardar cusub oo gelinayo doorashada soo dhawaatay ee sanadkan xiisaha gaarka leh. Farmaajo oo lagu xagliyo inuu taageero ka helo dowladda qaniga ku ah shidaalka ee Qatar ayaa hadda waxa uu la soo shirtagay xaalad cusub si xukuumadda Dooxa ay geedi ugu fidiso isaga. qorshahan cusub oo doorashada Farmaajo uu ku galayo ayaa ah mid saldhig u ah sida xogaha lagu helay waxaa durba ka bilowday maamul goboleedyada oo la xoogan oo gobol xaar u ah xeerka codeynta soo aadan sida qaraar ay ku sheegeen ila ka agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo safaaradda Qatar ee Soomaaliya. waxaa si xawli ah u bilowday dadaalo Dooxa mar kale ee kursiga ugu sarreeya dalka Soomaaliya ku saarayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. tallaabadan ayaa waxaa saldhig looga dhigayaa in madaxda dowlad goboleedyada dalka ay si toos ah ula shaqeeyaan filla Soomaaliya, xildhibaanada ka soo baxa 10 magaalo ee 5 maamul goboleedna noqdaan kuwa taageersan Farmaajo, iyadoo su'aal la gelinayo sida tani ay suuragal ku noqon karto maadaama Farmaajo iyo maamulada qaar aysan ahayn kuwa heshiis ah isla markaana xurguf dhinaca siyaasadda ah ay ka dhaxayso. dowladda Qatar ayaa waxaa la sheegay in madaxda dowlad goboleedyada dalka ay siinayso lacag aad u tar badan, sidoo kalena damaanad ay u noqonayso dowlad goboleedyada dalka khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya haddii uu ku soo laabto inuusan ka aargudan doonin. ilaha xogta bixiyay ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in maamulada saddexda ah ee xilliyada dambe ka agdhawaa filla Soomaaliya horay ay u aqbaleen xeeladan cusub ee Qatar iyo filla Soomaaliya doorashada ay ku wajahayaan. ha yeeshee waxaa shaki badan laga muujinayaa maamulada Jubbaland iyo Puntland oo markii horeba Farmaajo uu kala dhaxeeyay dagaal siyaasadeed oo soo jiitamayay muddo dheer. xogaha la helay ayaa sidoo kale waxay intaasi raacinayaan sababta ugu weyn ee Dani uu ku tagay Kismaayo inay tahay wada tashi dheeraad ah oo labada madaxweyne dowlad goboleed ay ka yeelan doonaan doonista cusub ee Dooxa, isla markaana ay si weyn inuu dhammaan doono dagaalka siyaasadeed ee Farmaajo, Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kala dhaxeeya haddii ay doorashada ka shaqeeyaan, iyadoo intaas ku dartay in ay helayaan malaayiin dollar iyo mashaariic horumarineed oo laga fidinayo deegaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland.
sidoo kale ilo madax bannaan ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in Kismaayo shalay ay gaareen saraakiil sirdoon ah oo ka tirsan dowladda Qatar kuwaas oo la aaminsan yahay in arrintaas madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ay kagala hadli doonaan. Xogaha la helayo ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in labada madaxweyne maamul goboleed iyo farmaajo isku saamin yihiin laguna qanciyay qorshahan, balse weli ay dhiman yihiin wadahadallo dheeraad ah, waxaana suuragal ah in wax kasta ay isbedeli karaan. Qorshahan oo horey u jiray ayaa xawli ku soo bilowday dhammaadkii shirkii ugu dambeeyay ee doorashada laguna shaaciyay jadwalka cusub ee codaynta. Intii aysan Muqdisho ka bixin, madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaa kulamo qarsoodi ah oo gaargaar ah la yeeshay safiirka Dooxa ee Muqdisho, waxa uuna si toos ah ugu soo bandhigay qorshaha dowladdiisu ku doonayso in dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo madaxda dowlad goboleedyada dalka qaarkood arrintaasi ay kasoo horjeesteen. Arrintan ayaana si weyn u soo nooleynaysa dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda waqtigiisu dhamaaday, waxaana qorshuhu uu yahay in marka hore lagu dadaalo soo saaridda xildhibaano daacad u ah filla Soomaaliya si uusan Farmaajo ula kulmin tartan adag oo halis gelin kara soo laabashadiisa. Kooxda TPLF ayaa shuruudo adag ku xirtay inay aqbasho xabad joojinta lagaga dhawaaqay gudaha dalkaasi Itoobiya. Jabhadda Xoreynta Gobolka Tigray oo 8 bilood ee la soo dhaafay dagaal kula jirtay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay soo saartay liis dheer oo shuruudo ah oo ay ku aqbalayso xabad joojinta. Waxaa ka mid ah in TPLF loo aqoonsado inay tahay dowlad sharci ah oo gobolka iyo in laga saaro dhammaan ciidamada Eritrea, sidoo kalena ay baarayaal madax bannaan dambiyada dagaalka ee gobolkaasi ka dhacana soo ifbixi kara. Arrintan ayaana waxay imaanaysaa maalmo uun kadib dagaal culus oo ay soo qaadeen ciidamada gobolka Tigray oo horseeday in dib u qabsadaan gobolka xilli saraakiisha dowladdu ay halkaasi isaga baxeen iyaga. Markaasi kadib ayay mas'uuliyiinta Addis Ababa waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinac ah. Wariyaal ku sugan halkaas ayaa dhankooda iyagu waxa ay sheegeen inay adag tahay in dowladda Itoobiya ay aqbasho dalabka ka yimid kooxda TPLF oo ay ku doonayso inay ka go'do gudaha dalkaasi Itoobiya, isla markaana iyadu noqoto dowlad sharci ah oo taagan. Gobolka Tigray ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa xaalado aad u adag oo isugu jira mid amni iyo mid kale oo bini'aadanimo. Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa kale ee Eritrea ayaana waxaa lagu eedeeyay inay halkaas ka fuliyeen falal ka baxsan arrimaha bini'aadanimada, iyagoo kufsiyo ka geystay gobolka Tigray markii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay jabhadda TPLF iyo sidoo kale ciidamada federaalka Itoobiya oo garab ka helaya kuwa dalka Eritrea, maadaama madaxweyne Isaias Afwerki uu ciidamo badan ugu deeqay Abiy Ahmed oo saaxiibo dhow ay yihiin. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, subscribe noo saar oo gambaleelka furo, asxaabtaadana u sheer garay.